بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان واد السلامي ولا الله جل كنا كحرن سمكو كنا كلتشر انت هبين وتي هبين وناكسن ولا عليالو انت معلو تينا معلو وناكسن كور كستا iyo goob kasta inuu joogna Allah subhanahu wa ta'ala khayr baynu weydiisanayna inta ka bacdi wala عليالو alxamdulillah ilaahay ba mahad leh ilaaha inagoon isarkayn oo qaarada adduunka ku kala maqan haddana ina kulminaya ee codkeena isa soo gaarsiinaya inta ka bacdi idinka mahad leh ma sha Allah tabaaraka raxmaan oo share-ta iyo like-ta iyo subscribe-ka quruxda badan ba ka qayb qaadanaya si channel-keenan u gaaro meel kasta ummadana Allah subhanahu wa ta'ala wixii ugu talagalay inuu ka faa'iideystaan walaalayaal maanta barnaamijkeenu waxaan barnaamijkeeni murtida afka hooyo sidaynu ognahayba ama mahmahaynu soo qaadanaa ama hadallo lahjada soo luqada Soomaaliga lagu kala duwan yahay soo qaadanaa ama yacni kelmado ku jira luqadeena Soomaaliga qaniba baynu soo qaadanaa maalinba wax baynu soo qaadanaa maanta waxaynu soo qaadanaa mahmaaho reer koonfurka iyo reer waqooyigu ku kala duwan yihiin oraah markay oranayaan ama dhawaaq ahaan laakiin macna ahaan isku mid ah laba mahmaahood baynu soo qaadanaynaa oo ah reer koonfurka iyo laba mahmaahood oo reer waqooyiga ah waxay xambaarsan xikmad aad u qiimo badan aad u wanaagsan waxaynu ognahay dadkeena Soomaaliyeed waayadii hore waxna ma qoran jirin waxna ma akhriin jirin laakiin noloshooda waxay ku wadi jireen hal abuur iyo xikmadda iyo suugaanta taasi noloshooda ku salaysnaan jirtay mahmaahda koobaad haddaynu soo qaadno reer koonfurku waxay yiraahdaan canjeero siday u kala sareyso loo kala qaadaa halka reer waqooyigu ka yiraahdaan ooda dhacmeed siday u kala sareeyaan ayaa loo kala guraa macnaheedu waxa weeye canjeeradan ma laga hadlaayo oodanna ma laga hadlaayo ooda dhacmeed sida cid aan garanaynin waa oodahan wax lagu oodo ama xoolaha lagu oodo ama guriga lagu oodo waa ood meel lagu ooday weeyaan macnaha iyo murtida ku jira wax weeyaan xaajadu siday u kala sareyso ayaa loo kala yacni loo kala waajaha tusaale nimka idin siinayaa wax weyn haddii ay ku yaalaan arrimo badan oo u baahan tahay inaad xalliso siday u kala muhiimsan yihiin inaad u kala xalliso weeyaan ama nolosha gurigaaga ha ku ahaadaan ama nolol kaleba ha ahaadaan laakiin siday arrimuhu u kala muhiimsan yihiin ayaa loo kala qaadaa sida yacni u kala daran yihiinna iyadana waa loo kala xalliyaa laakiinse haddii arrin aan muhiim ahayn waqtigu kaaga lumo arrintii muhiimka ahaydna aad halkeediba uga dhaqaaqin dee waxa weyn canjeerada tii hooseysay ayaad soo qaaday marka canjeerana waa garan kartaan haddii intaan taw hooseysa soo qaadno inta kale oo dhan way iska diyeysaa oodahana haddaad taado taw hooseysa soo qaad maba kala rogi kartidba ilaa aad xabad say u kala sareeyaan u kala gurto marka nolosha ama maxay tahay arrimaha siday u kala horeeyaan u kala muhiimsan yihiin ayaa loo kala xalliyaa taas waa ta labaad mahmaahda labaad waxa weeyaan misbaax minanka u baahan minan dadow ma la geeyo misbaax waa faynuus minanka u baahan minan dadow ma la geeyo faynuus gurigaaga u baahan weeyaan macnuhu inaad ku shido gurigaaga madow de guri kale looma shido gurigaaga madow qofna intuu faynuuskiisa qaato uu dhaahdo anigu gurigaygan madow waan seexanay guri kale ma dhigo tareer marka waa mahmaahdaas waa reer koonfurka reer waqooyiga mahmaahda u dhow waxay noqonaysaa tiisaba daryeela tu kala ku dara tiisaba daryeele ayaa tu kala ku dara arrintaasna waxaad moodaa wadcigeenu imika joogno inay aad inoogu badan tahay xagga dumarka haddaan ku horeeyo waxaad arkaysaa inan walaala ama hooyo ah oo nolosha reerkeeda waxyaabo badan ka dayacan yihiin haddana maanta oo dhan waqtigeedu ku qaadanaysa hiblaayan la joogay hiblaayan la sameynayay hiblaayan la soo shoobinaynayay hiblaayan la hagaajinayay hiblaayan caynkana hiblaayan sidana hiblaayan raacaya oo laga yaabo hadayadiya ninkeedu inay isku seegaan hiblaaye socota noloshaada markaad hagaajisato ayaad nolosha kala walaalay wax ka qaban kartaa laakiin haddii nolosheenu ay dayacan tahayba tu kale waxba ka maqan karto xagga wiilasha haddaan soo jeesto ama xagga nimanka aad bay iyaduna inoogu badan tahay waxaad arkaysaa imika nin hadduu doono tusaale qurbo jooga caruur ku haysta badweynta u baahan inuu caruurtiisa iyo xaaskiisa badbaadiyo waxna la qabto oo ku oranaya meel heblaayaan isu tagay inaan iska soo sharaxo reerkiisi waa dayacayn caruurtiisi waa dayacan tahay ma oga iskuulkooda
ma oga madrasadooda ma oga noloshooda xaaskiisu rafaadka qabta ma oga kadeedka ma oga nolosha yacni inay reerkiisu dhergaan iyo inay gaajoonayaan ma oga haddana ummad kalean hogaaminayaan u soconayaa ayuu waqtiga ku luminayaa taasi marka waxay noqonaysaa tiisaba daryeelaatu kala ku dara waxaa jirayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu nagu yidhi qof kastoo idinka mid waa mas-uul qof kastana mas-uuliyaddiisa maalinta qiyaamaha waa la weydiinayaa haddaba aabow mas-uul baa tahay mas-uuliyadda lagu weydiinaya ugu muhiimsana waa mas-uuliyadda reerkaaga waa mas-uuliyadda xaaskaaga iyo caruurtaada kaa saaran iyo gurigaaga iyo hagaajintooda hooyay adda mas-uuliyad baa lagu weydiinayaa waa mas-uuliyadda awlaadaada iyo ninkaaga kaa saaran iyo gurigaaga inaad wanaajiso taa markaad qurxiso taa markaynu qurxino nolosheena haddaynu ragna iyo haddaynu dumarba nahay ayaynu ummadaha kalena wax u qaban karnaa marka bal qof walba maanta maxaa la yidhi misbaax minanka u baahan minan dadow ma la geeyo qofowna waxaan kuli waxaad u baahantahay ama faynuus aad u baahantahay ama noloshaada tiyo xallis u baahan nolol dad kale ha isku qaadin intaynu dib u kulmayna insha allah tacaala waxaa idinkaga tegaa share iyo like iyo subscribe quruxda badan waa xaggiina waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi